Bismillah, Warsama Digital Media. Waa idin salaamay dhammaantiin. Kulanti wacan. Xalay intiinii dhegaysatay cod aan soo duubay oo ku saabsanayd qiso la yaab leh markii diyaaraddu nala khatifay oo ay ku degtay Bardaale meeshii ceel barde ee gobolka Bakool 2001. Marka hore waxaan xusuusinayaa qisooyinkan Warsama Digital Media ka baxo taariikhda ku saabsan meel kale oo aad ka helaysaan male. Marka waxaan ka codsanayaa inaad ku xirantaan Warsama Digital Media, soo subscribe garaysaan, taageerdaan, like iyo haddii la kuriya share ku dhufataan. Waxay ahayd halkaan aan ka baxnay diyaarad ka qaadanay Garowe. Waxaan u soconnaa ceel barde halkaas oo ay ku sugan yihiin madaxda Araare, Shaati Gaduud, Sheekh Aadan Madoobe iyo Xaabsan. Ujeedadayadu waxa weeye labo mar inaan dhisno dowlad goboleed loo yaqaan South West State of Somalia ama dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ka kooban 6 gobol: Gedo, Jubayaasha, Bay iyo Bakool. Ujeedada labaadna waxay ahayd halkaas inaanu ku dhisno ama ku bilowno dhismihii urur xooggan oo ka kooban dagaaloogayaasha Soomaaliya koonfur iyo waqooyi bariba iyo Arareeda ama Gedo iyo Bay iyo Bakool. Diyaaraddii waa nala khatiftay. Ninkii baa waday, dabcan charter plane bay ahayd kuwaan la kiraysto. Wuxuu ku degay Bardaale oo markaa roob ka da'ayo. Garoon diyaaradeed oo macno leh iyo xataa waddo diyaaraddu ku ordan aan lahayn. Xataa kuwii qaadka diyaaradaha qaadkeena xataa aan tegin, waayo waa khatar weeye. Waa dhiiqo markaana roob baa da'ayo aanu degayno. Diyaaraddu saasay tiraahdaa baalasha run ahaantii waa sigan. Haddaanu degnay waxaan aragnay diyaaraddii oo hareeraysan oo ciidamo Maleeshiya ah oo qaarkood feerqaawan yahay, oo qaarkood dabagaabyo qaba, oo qaarkood macawso qaba iyo dameero ay wataan oo isku xeeray diyaaraddii. Aakaygana saa u wada haysta. yaa baa Ilaahay noo keen. Cabdillaahi Yuusuf oo waftiga hogaaminayay ayaa wuxuu yidhi de waxaan u baahnahay qof miino baar ah. War Ismaaciilow dego bal waxay yihiin soo fiir. Baalodkii baa iga furay albaabka, waa degay. Dad qoriga aakayga saa wada haysta oo waxay yihiin aan garanayn oo qoriga saa igu wada haya ayaanu degay. Indhuhu saasay yihiin. waxaad moodaa inay mid walba fiirsanayo shaatigaan qabo kii qaadan lahaa, surwaalka kii qaadan lahaa, kabaha kii qaadan lahaa, saacadda kii furan lahaa markii aniga la dilo. Anigoo nervous oo maaragtay walwalsan ayaan baakad sigaara kala soo baxay jeebka, wac baan xabad ka siiyey. dee kaligay ma cabayee
iyagina waxaan bilaabay inaan u tuurtuuro xabad sidii nin ka socda hay-adaha quudinta bini aadamka xagga bini aadamnimada oo saa ugu sayrsayray. nimankii ma hadlayaan oo xataa aksentigooda ma maqlayo. mid baan ku soo dhawaaday xoogaa aad moodo shaati nadiifa inuu qabo, waxaan warreedhe kuwaa tihiin, kama jawaabayo, warwareeg buu galay. lahjadiisii waan wax ka gartay inuu eelay yahay, af eelay ku hadlayo. haddaan usii kuur galay waxaan ogaaday nimanku aaraaray inay yihiin. markaasaan idhi dhegaysta, diyaaradda tan meesha taagan waxaa fuushan Cabdullaahi Yuusuf, ma dhici ka dhaa layidhi. dee aaraareeda ma ogtahay waxaanu nahay isku garab baan nahay. ilaan war ma haynee shalay oo kale ayaa Cabdalla Deerow oo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdiqaasim ayaa wafdi halkaan inta ku yimi, markaasaa la cayrsaday oo khatar galeen oo meeshii dirqi uga fakaday. waxaa la mooday iyagii oo soo laabtay, waxaa la rabay in laga takhaluso maca diyaaradda la gubo. wax yar haddaan nimankii waxay yidhaha ma dhici kardha Cabdullaahi ma saara. labo saraakiishii ka mid ayaan kor saaray. Cabdullaahi wakaasaan ku yidhi oo waaba ku soo boodeen oo madaxay ka dhunkadeen. haddaanu ogaanay xaaladdu say tahay waa soo degnay, bal inaanu roobka daa'iyo aan firfirino, meeshu dhooqo weeye diyaaradda hoosteeda. 2 Land Cruiser baa noo yimi, mid baa marka hortay, dabaedna mid kalaa ka dabatay. waanu raacnay, waxaa layihi magaaladaan idin geynayna, ragga wata meesha. waxaanu magaaladii Bardaalaan tagnay, waxaanu u tagnay Cariish yar waanu gallay. waxaanu halkaa ugu tagnay Sanasoor ninka la yidhaahdo. hada Sanasoor oo halkaa jooga oo sariir aan xataa joodarista firaash saarayn saa dhacdeedu ugu jiifa. waa uu soo booday oo shaah ma idin kariya, war shaahna ma rabna, waa soo qatibnay, waa tegayn. diyaaraddii waa kusoo laabanay. run ahaantii xataa diyaaradda kicitaankeedii khatar baanu galnay oo saasay maaragtay diyaaraddu saasay u cararaysaa, yacni inay dhacdo sidii baashatan la yidhaahdo dhugdhugleyda ma fogaba. ilaahay nasiibkiis waa kacnay. ilaa diyaaraddu markay fadhido communication ma samayn karno ilaa ay hawada gasho. kolba taas ma samayn karin. hawada markay gashay oo xaggaa iyo Muqdisho ugu jeediyey yaa Cabdullaahi yidhi war diyaaraddu maxaa horba u socotaa? marna dee niman tegi kara maahayno. niman waxaan nahay xira oo wantana. madaxweyne waxaan idhi usug yaynaan hawsha bayloodka ku qabsan. calaa kulli xaal taawarkii markaa Nairobi buu la xirtay. Bardaan tagnay goorna la ku sugayo qoladii madaxdii aarareeda oo yaabanoo u maleeyay diyaaraddeeda inay dhuntay ama dhacday. shirkii baanu gallay, waxaanu isugu yeernay, waanaga isugu yeernay the warlordskii maaragtay Gedo iyo Kismaayo iyo Bay iyo Bakool. Gabyow iyo General Morganna waxaan uga yeernay Addis Ababa, iyaguna waa noo yimaadeen. awal baan sii wargelinayoo qaarkood diyaar buu ahaa markaan tagno. kaaga darana kuwa Gedo oo Cabdirasaaq Saabixi iyo Maxamuud Sayid haddeeraysa soo laayeen oo dagaal baaba ka dhexeeya. Kismaayo dee warkeeda iska daaray, wiilasha Mareexaanka ah oo Barhiiraan hoostooda joogay oo meesha noogu yimi, iyaguna dee waad garan karaysaan mowqifkooda siyaasadeed suu yahay. waxaanu bilownay dib u heshiisiin kuwii horta daaroodka inaanu samayno. ilaa dowladdii koonfur galbeed lama dhisi karo haddaan kuwaasoo heshiin. 6 gobolna way ka kooban.
saddex maalmood bay naga qaatay ilaa arareertu ay madaxdii arareertu ay tiri war meesha ma waxa u timaadeen inaad daarood dib u heshiisiin u samaysaa war may dee waa nala durugtay arrintu calaa kulli xaal shaati gaduud iyo xaabsada iyo sheekh aadan madoobana waa nagu soo biiray halkaas waxaan ka soo saaray heshiis waa xusuustaayoo laptopka anigu aan wato iyo satellite baan isku xirtay press statement baan halkaa ka soo saaray yani war murtiyeed baan ka soo geed quraca hoostiis ilaahay ugu ogey internetka wacay oo ku xiran satellite-ka wuxuu waa dial up yani numberka satellite-ka wuxuu garaacayaa modem ku xiran Sydney Australia Melbourne halkaas ayaan ka soo saaray internetkii dee waxaan u haystaa dee waa ku xiranaya adduunka oo dhan baan ku faafin dabadeedna halkaas waxaanu ka bilownay isu keenidda iyo baaq loo jeedinayo dagaal oogayaasha Soomaaliya oo dhan inay isu yimaadaan oo meel la yiraahdo Hawassa oo Ethiopia isugu yimaadaan halkaasna waxaa lagu abuuray golihii warlordska oo la oran jiray SRRC marka ururkaas wuxuu noqday ururka ugu xooggan ee ka soo horjeeda dowladda Cabdiqaadir dowladda Carta dabadeedna saldhig buu ahayd taageeradayadii markaan Embagaasi joognay laba garab oo iska soo horjeeda garabka Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo garabka SRRC halkaas guul baa ka dhacday waxaan uga dan lahaa yani sheekadii xalay waa maaragtay warkaygii adoo waxa ku bilaabatay war meel fog baa geedaan laga keenay meel fog baa Puntland laga keenay meel fog baa Soomaaliya laga keenay marka ragga dhalinyarada ah gabdhaha iyo wiilalba inay la socdaan weeye taariikhdii la soo maray aad iyo aad baad u salaaman tihiin intaana ka bixin mar labaad sheekooyinka kan xiisaha leh meel kale oo aad ka helaysaan adduunka male walaa book walaa internet walaa meel kale warsama digital media baad ka helaysaan soo taageer aad iyo aad baan idin salaamay